الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد شركة إنترايد ما تقبلنا إنه وحده دارين هاي لبا قضب أوه ريا وحوي هاي dadka duufaanadu ku dhaceen iyo mucaawinooyinka la siinayo sheekadooda ayay midaaran tahay takalana waxa weeyaan ishiga jaamacadda Amuud hadii aan ku horeeyo dadkan duufaanadu ku dhaceen iyo mucaawinooyinkooda mucaawinada la siinayo dadkaas waxay u baahan yihiin in aad loo caawiyo ayay u baahan yihiin dib aan weligeed wadanka Soomaaliya ama geeska Afrika aan ka dhicin ayaa ka dhacday Somaliland iska doodayo Soomaalidii weyneedba waxaan qabsaday geeska Afrika waxaan ka dhicin baa qabsaday kolka wixii taageero ah ee la siinayo waxa fiican inana la siyaasadayn oo aan la gelin muxuu ahaa siyaasad aan la gelin ayaa wanaagsan dar ilaahayna loo bixiyo fiican maalmahan waxaan ku arkay media iyo laga sheekaynayo 1 milyan wax alla waxay dadka ka qabanaysaa u taraysaa haba yaraatee ma jirto haba saahatee $10 hadii aad siisana kullay waxba u qaban laakiin lacag ay daba socoto sadaqad ay daba socoto mani tima dooninaba to an mani daba socoto hadal daba socoto tashwiis daba socoto la siyaasadaynayo oo waxa ka soo gaadhayna had garanayso waxaan u maleynayaa taasi inay تشويه كلينيسو لكن نكي در إلهي وحب حنايو واحد دتكاس وباهن يهين إن الله عاويو دول كيجو أردن أيا أسفل أسافلين لقد يقولنا عد كلا لو براي وبعد كي ووسي يبقى سر الله سوقه حاجة سر لك يعني حقي سر حاجة هو سالجي وحكى دعوة أركي كلام قياسي كرتا معها نسياسو حفيظ فديا وحو قياسي كرا معها أما كفرها جوجا أما قلبها جوجا أما مشوا دونا بجوجا إنه سنيك سو أركم ويان واتيها وقري مدفعنا مصبح عمري قصار رجع وكي قريي وكي شيء حلقة كبل عبنتو طوفان قالوا كبل عمي حلقة كل دعوة وكي شيء إنك سنقار كله كم مقليني إن طوفان كل دعوة وتكودا كونه إلا كونه لكن طوفان ذي رباب كينه كله قرنينه طوفان واتني أسفل سافلين كدكتير لو كي أردن ببتشيوي كلنا ورباب كي بدناي دعوة بورا ما كم تايويان كل كاتاسوا تاوا قضب كي أنك شيء كينه يأها ضدك إن الله عويه يمليان كشيء كذا بدن سوق شيء قضب كله جامعة عمود هدي أنك عايش شيء هرت جامعة ضيّدة عمود وجامعة يوجو الرئيسية جامعة فرها بدن لقي مكودن كجرا شروطها لو سوق عليه لا هاي شروطها سي لو سوق عليه جامعة عمود كمان مذاها قبيل كمان مذاها غير هبل وينه هذا كمان مذاها ريجن هبل قبل هبل وين كيماتا كمان متاها شروط أرضنا لو أقبلها جرا جامعة عمودنا وحق على جيس كأفريقيا أرضنا كسب بحضر أردن باكشة جيبوتي كل كلا بلابي جيجيل لمريو جيرسل لمريو نيروبي لقى سو روجو إثيوبيا لسو مريو هالكال بورما لقى بلابي قبيل لمريو هرجيسة لحد مريسو مريسو برعو مريسو قبل فرادة بدن تقوي دكتان بطلنا كوا وبيكمديه أرضنا أو بيكمتاي ربطلنا واحد كمديهين كوا وبيكمديان أو درجنو كوا جيرس كي مادان ودقنا كوا نيروبي كي مادان ودقنا كوا مريكا كي مادان ودقنا وحندون إن أفريقيا أردنيانا هالكن سكوتي مادو وحيرا كوبانو ريرلي هي حقوق هذا إن انتهى عمودي كل كاشة كذا عمود إشيو يعني لقدين إشيو أما قفقوا هذا أما هذا محوها حلوين هايو أما شعبها هذا متعلن إن الشيء كذا عمود إشيو لقديو لقو يو تمو مدب ماشو دونا ولا مرو لكن وحني نيشينا أرضي جامعة عمود وحي لم تهايون dadka imika masaajid baan ka soo baxnay dadkii ku tukanaya meeshaasi cid hayaan ma garanayno aamin tuban maqlaynay jaamacada Amuudna aamin tuban maqlaay cid ay kala yihiin iyo cid ay gobolka ka yimaadeen iyo saliyada ka yimaadeen annaga nooma xisaabtana kolka waxaan ku talinayaa umuraha hoos loo dhigo oo aruuraha yeen saddex qodob ayaan insha Allah anigu ka hadlay saddexda qodob oo ah waa qodobka mucaawinada dadka dhibaataysan ee tacsida fadhiya ee hantidoodii waayay qodobka labaadna waxa weeye khilaafkan u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland inaan isagana loo rigin mid qabiil waa mid siyaasadeed inaan mid qabiil laga dhigin iyo qodobka saddexaad oo ah jaamacadda Amuud ama jaamacadaha dalka oo raga qaar ku yar galgalanayaan taana waxbaan ka oran
haddaan ku horeeyo dadka dhibaatada ku dhacday dad muslimiina baynu nahay dad walaalaha baynu nahay dadka dhib weyn baa ku dhacay 60 qof baa la hayaa inta dhimatay weli tirakoob rasmiyana lama hayo dad buuraha ku go'doonsan baa jira beerahoodii way waayeen hantidoodiina way waayeen ninkii wax tari karaya ha taro kaan waxba tari karayna ha u duceeyo ka aan u ducaynayna carabkaaga ha ka nabad galaan baan leenahay taas waa taa qodobka xagga khilaafka waa wax uu noocyuu leeyahay mid diiniyaa jira mid siyaasiyaa jira mid qabaliyaa jira way noocyo badan yihiin khilaafaadka bulshooyinka ama dalalka dhexmara khilaafkan maanta Soomaaliland iyo Puntland u dhaxeeya waa mid siyaasi ah dawlad baynu dooranay shacabku dawlad buu doortay dawladda waa inaan uga dambayno ragga ka soo horeeya dawladda ee afayeenka isaga dhigayeen afayeen u noqdaan doonaya war dawladdu afayeen bay leedahay dawladduna kaalinteedii ha qaadato ha ka dambeeyaan oo dhammaanteena ka dambayno dawladda baan leenahay taasina waa taa arrinka la leeyahay la doonaya in qabiil loo rogo ganacsato badan baa jirta oo reer Soomaaliland oo Puntland ka shaqeysata dahabshiil baa kamida tuulo wal ama tuulo kasta oo ku taala waxa weeyaan Puntland xafiis buu ku leeyahay waxa jira dad reer Puntland oo xawaalada kule Soomaaliland baa jira hudheelo waaweyn oo imika Hargeysa laga dhisaa jira sidaasi waa sidaynu rabno marka ganacsiga iyo waxbarashada iyaan la siyaasadeynin dadku ha kala xoogsadaan arrinka camuud haddaanu imaad camuud munashibiya ma hadee dawladda hoose oo kaadhka dhalashada lagu bixiyo maaha waa iska soo horjeedaan jaamacadda iyo munashibiyada dadka loo abtiriyaa in magaalada uu ku dhashay baa la eegaa lama siiyo kaadhka dhalashada dadka kale ee aan magaalada u dhalan waxbarashadana gaal iyo muslim ciddii buuxinaysa shuruudaha jaamacaddu ay leedahay way u furan tahay Soomaali marka laga tago marka waxaan leenahay dadka ragga ku galgalanaya ee jaamacadaha iyaan la siyaasadayn baan leenahay dhibtuna halkay taallay laga sii turkin baan leenahay